xusbiyada mucaaradka ee wadaniga u ciiday gobolka Sanaag ayaa si wada jir u cambaareeyay xariga wariyaha Kalsan TV ee gobolka Saaxil Axmed Saciid Maxamed oo maalmo ka hor si sifo sharci darro ah xukuumaddu xabsiga ugu taxaabtay isla markaana maalintii Khamiistii loo gudbiyay xabsiga weyn ee gobolka Saaxil waxaana xusbiyada mucaaradka ay xukuumadda ku dhaliileen la dagaalanka xukuumaddu kula jirto wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala guud ahaanba Somaliland oo ay sheegeen in xukuumaddu kula kacdo tacaadi cagajugleen iyo caburin si ay wariyaashu u daboolaan bogahooda dhaliilood ee xukuumaddu leedahay hase yeeshee ay taasi noqon weyday mid suurtagal ah oo ay xukuumadda Siilaanyo bilowday ugaarsi ay ugaarsanayso wariyaasha madaxa bannaan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa saxaafadeed aanu ka soo saarayno xafiiska gobolka Sanaag ee xisbiga wadani anigoo ah gudoomiyihiisii gobolka Sanaag waxaanu dhalacaynaynaa runtii oo cambaareynayna wariye ku xidhan magaalada Berbera oo la yiraahdo Axmed Saciid Maxamuud oo shaqeeya telefishinka madaxa bannaan ee Kalson waxaan leenahay wariyahaas sida aanu maqlaynay ama aanu la soconno wuxuu ku xidhan yahay xaq darro iyo caburis dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ka tirsan waxaan leenahay yaan la caburin dadka xorriyatul qowl baa dadku u soo bannaan baxay loo soo halgamay in la caburiyo maanta ma habboona in ay wariyaha u soo deyso xorriyadiisii helana uu xuquuqdiisii u lahaa madax bannaanida dawladdu inaanay kaba xishoonin wariyayaasha waa ceebay iska leedahay inay ninkii wariye ahee kelmad yidhaahdaba tiraado hal la xidho xafiiska iyaga u ciid ee gobolka Sanaag waxaan u qabanay shirka jaraa'id wariyayaalka lagu hayo tacadiga sida cadaalad darrada ah jeelka loogu ridayo oo loogu jarayo maanta khaladka ah loogu jarayo ayaanu ka xunnahay cambaaraynayna mar iyo lababa aanan cambaarayna 100 jeer cambaaraynayna waxaanu leenahay si degdeg ah saxaafadda madaxa bannaan si degdeg ah ha loo sii daayo wariyaha xurriyadiisana loogu soo celiyo waxaan halkan ka cambaaraynayaa oo dhaawac weyn nagu ah oo dhibaato weyn nagu ah oo muraad dilaac nagu ah oo qarraqa nagu ah wariyaha la xidhay Kalsan laga xidhay ee sharci darrada ah lagu xidhay isagoo waxba geysan Siilaanyo waxaan u sheegayaa oo marka labaad u sheegaya waxaad noqotay madaxweyne ku macaariday wariyayaasha Somaliland waxaan ku sheegayaa si degdeg ah inaan ka la xidhay Maxamed waa in loo soo daayaa si degdeg ah oo aan maxay ahaatay bilaash xafiiska ay leedahay wuxuu ee ku leedahay gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo haddii aan nahay garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka shirka iyagana oo daaran quseeyana kuna socda wariyaha saxaafadda madaxa bannaan ee lagu qabtay waxaan ku yiri magaalada Berbera looguna qabtay sida xun ee sharci darrada ee fooqal sharca ee waxaan ku yiri wariyaasha aan qaban ee loo taxaabay maxay dhahay loo taxaabay waxaan ku yiri jeelka weyn ee loo jaray rumaanka ee sharci darrada ee fooqal sharca runtii aad iyo aad baan u cambaaraynaa waana ka soo horjeednaa waxaanu leenahay saxaafadda madaxa bannaan dawladda Somaliland dimuqraadiyad bay sheegataa haddayso saxaafadda madaxa bannaan ee had iyo gooraale sida jirka iyo bisada ay u daboordayso isu daboordayso waxa weeyaan ha loo sii daayo wariyaha madax bannaanidiisii sidoo kalena waxa xusbiyada mucaaradka ee gobolka Sanaag soo dhaweeyeen go'aankii madasha wada tashiga iyo xusbiyada mucaaradka ee ahaa in aan doorashadu dhaafin waqtigeedii isla markaana komishanku u madax bannaanaado xilliga ay dhacayso doorashadu waxaanu kala taageersanahay labada xisbiga u ciid ee cadaaladda iyo daryeelka xisbiga wadani madasha wada tashiga shirkii jaraa'id ay qabteen go'aamaday soo saareen waanu ku taageersanahay waana ku garab taaganahay marka waxaan leeyahay dawladda waxaan leeyahay oo aan ka codsanahay waxaanu kale oo taageersanahay oo aad u taageersanahay shirka labada xusbi mucaarad iyo madasha wada tashiga jaraa'idkii ay gaadheen ee ku qabsadeen xafiisyadooda ee ay ugu qabsadeen inaan doorashadu waqtigeedii dhaafin doorashadu ha qabsoonto xilligii dawladdu ugu tala gashay yaanay dib uga dhicin haday dib uga dhacdana waxa taala waxaan aad iyo aad u taageeraynaa haddaan nahay xusbiga Ucud ee gobolka Sanaag wada tashiga iyo labada xusbi mucaarad go'aankii ka soo baxay ee ahaa in doorashada lagu qabto xilligeedii waxaan xaq iyo xalaash ay siday tahay
oo ma garanaysaa in lagu qabto doorashada waqtigeedii oo aan dhaafin. xukuumaddan uu hogaaminayo Shiilaanyo ayaa mid waqtigeedii si dhamaanayo isla markaana caadaysatay xariga wariyaasha madaxa bannaan iyo tacadiyada foosha xun ee ku hayso warbaahinta. وبرقد محمود قادي كالسن تيفي عرقابو.